بسم الله الرحمن الرحيم. مركب رواد السلام يا وحنو يري جدد arrimaha bulshada golaha wakiilada waxaan siinay warbixin ku saabsan xaaladda caafimaad iyo hawlaha wasaaradda caafimaadka. marka kulanka iyagu wuxuu ku salaysnaa kaliya iswaraysi iyo ka warbixin wasaaradda caafimaadka intaas oo ma dhaafisnayn. wasiir waxa jira arrin cusub oo marka arrinta gudida laga tago waxa tagtay gobolada bari iyadoo ay rag mas'uuliyiin oo ka soo jeeda goboladaasi bari ay Soomaaliland salugeen siyaasadda isla markaana ay ka tageen miisaan badan ku lahaa dalka sida Axmed Cabdi Xaabsade. hadda waxaad soo xirigelisay fu'aadaadan caddo isaguna wax badan salugsanaa inaan lagala tashan arrimaha deegaankiisa. arrinta faahfaahin kooban laga sii horta marka hore fu'aadan uma soo xirigelin. fu'aad xiridu iskaga jiray Soomaaliland buu joogay magaalo ka mid ah xudun la yiraahdo meel kalena muu tagin. iminkana wuu soo noqday wixii cabashada jirana kollayba waa laga dhageysan. waa oday muhiim Soomaaliland waa mudana joogay mabdiyana aaminsan. waxaan filayaa rajaynayaa haddii alla ka dhigo in kollayba hadday jiraan wax cabashooyin ama tabashooyin inuu soo bandhig doono xukuumaduna insha Allah ay tixgelin doonto. saacad wasiir xagga talaalka oo kale waxa la sheegay hadii jeer in wasaaradda ama xagga shaqaalaha ay soo dhex galaan musuqmaasuq oo dadkii hore qaar ka mid ah sida imika hadda talaalka laga reebay. loona eega talaalka marka la qaadanayo ama DG-ga ka timaada ama wasiir ku-xigeenkaaga ama adiga lagu qaato waji iyo xulasho. waa arrimaha naga arrinta waxa kama jiraan waa been mana ogolin anagu wax musuqmaasuq ah inaan la dagaalano mooyaane in anaga mas'uuliyaddeeda hoosteeda ay ka filaan wax musuqmaasuq ma ogolin. kulli ma ogi aan arrinta wasiir waxa jira deegaanka aad ka soo jeeday buuxoodle hadda waxa ka dhacay heshiis ballaaran oo la sheegay in laba beelood oo beelaha buuxoodle iyo deegaanka Qoyligu loogu kala qaaday mago iyo dhibaatooyin dhawaa soo kala dhaxgalay. arrimaha maxaad kala socotaa? meesha nabad baan ka wadnaa si ballaaran oo muugle loo galayo haddii alla ka dhigo. dadkaas wadad walaalaa wada dhashay aan kala maarmi karin. way naga go'antay in kalsoonidoodii isdhexmarkoodii wada daggoodii wada dhalashadoodii intaba la soo celiyo. xukuumad ahaan way naga go'an tahay. waanu tagnay qorlugudii buuhooda labadaba waan tagay. dadkaas waa dad colaadii maaragtay riyaamisay mugdi ku jiray muddo nafo badan ku kala dhinteen. waa dad iminka bislaaday nabadda. waxaan rajaynayaa haddii alla ka dhigo sidii ay isu ahaayeen wada dhalashada lahayd ee wanaagsanayd inay dhawaan isu noqon doonaan. aad iyo aadna way nooga go'an tahay inaan hawshaas ama colaadii dhacday dib u soo noqon. wasiir waxa lagu caleema saarayaa magaaladii Boqorle sida la sheegay in halkaas la doonayo in xilka kula wareegaan isaga iyo hogaamiyihii hore kooxda Khaatuma. marka arrintaas adigu sidaad u aragtaa ama maadaama aad ka soo jeedo gobolka Boqorle in siyaasadii halkaas Soomaaliland ka hadlaynaysa ama madaxweyne Siilay xilka kugu magacaabay ma la oran karaa arrintaas uu kaaga adkaaday ama adiga walaga qabsaday shacabkii halka anigu ma ogi Cali Khaliif Boqorle soo calaam saaraya. waxaan kama jiraan waa been. Boqorlena ka yeelmayno dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo Cali Khaliif wado. haddii ay dhacdo sameyn baa talaabada ku habboon ka qaadayna haddii dhacdo. saacad wasiir Cali Khaliif galay uu hadlay waxa uu sheegay in Soomaaliland nabad ugu baaqay laakiin Soomaaliland xabada fadhiyo nabadda uu ku baaqay in diyaar baan u nahay wada hadal inaan la galo Soomaaliland sabab waa arrin wanaagsan oo jirto. Soomaaliland xukuumadda mar walba way ka go'antay nabad. xabad ma wado. xabad haddii la wado sax dheer ciidamada Soomaaliland way dul taagnaayeen waa la geli lahaa haddii xabad la doonayo. cid kastoo nabad wadana waa la soo dhaweynayaa. ciddii qas iyo dhib iyo mushkilad wadana waa laga hortagayaa oo la ogolaan maayo. Soomaaliland ogolaan mayso cid dan gaar ah iyadoo wadata qalalaasa iyo qas ka rida deegaamada Soomaaliland.